waa muuqaal ka mid ah muuqaalada aan uga hadli jirnay dalalka caalamka ee ku soo dhawaada saaxiib yaal. Dalka maanta aan ka hadli rabno waa dalka New Zealand. Waa dal intiina badan ay hore u maqleen, waana meesha ugu horeysa dunida ee qoraxda ka soo baxda ee soo dhawaada saaxiib yaal. Inta aan muuqaalka bilaabin, fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar, videogana like garay si aan u soo badino muuqaalada aan uga hadlayno dalalka caalamka. Mahadsanid. New Zealand waxay ka kooban tahay laba qaybood: jasiiradda waqooyi iyo jasiiradda koonfureed, iyo dhowr jasiiradood oo gaaraya 700 oo jasiiradood oo yaryar. Laakiin jasiiradda koonfureed way ka weyn tahay jasiiradda waqooyi, balse jasiiradda waqooyi way ka dad badan tahay jasiiradda koonfureed oo waxaa ku yaal magaalooyin caan ah sida magaalada Auckland oo ah magaalada ugu weyn uguna dadka badan dalkan, oo 32% guud ahaan tirada shacabka ku nool dalkan waxay ku nool yihiin magaalada Auckland. Dabcan magaalada Auckland ma aha caasimadda dalka, oo caasimadda dalka waxa ah magaalada Wellington. Guud ahaan tirada shacabka ku nool dalkan waxay gaarayaan in ka badan 5 milyan oo qof. Dhanka dhaqaalahana waa dalkan waa mid dhaqaalihiisu sareeyo oo wuxuu ku jiraa ururka Commonwealth oo ay iska midaysan yihiin dalka Australia iyo dalka Canada. Ururkan waxaa laga maamulaa dalka Ingiriiska oo waxaa maamusha boqortooyada Ingiriiska. Dalkan dhaqaalihiisa wuxuu si weyn ugu tiirsan yahay dalxiiska oo in ka badan 4 milyan oo qof ah oo sanad walba booqata dalkan. Dhanka diimahana inta badan dadka ku nool dalkan wax diin ah ma haystaan oo wax diin ah ma rumaysna. Luqadaha rasmiga ee dalkan looga hadlana waxaa ka mid ah luqadda Ingiriiska iyo luqadda Maoriga iyo luqadda loo yaqaan Sign Language ay ku hadlaan dadka dhagoolada. Waana dalka ugu horeeyay ee aqoonsada luqaddan Sign Language loo yaqaan. Inta badan dadka ku nool dalkan waa dad Yurubyaan ah ama dad cadaan ah oo laga keenay qaaradda Yurub. Dadka asalka ah ee dalkan ama dadka dalkan loogu yimid waxaa loo yaqaanaa Maori. Waana dadkii ugu horeeyay ee dalkan. Markuu gumaystaha reer Yurub u tagay dalkan wuxuu ku arkay dadkan oo degan. Tani waa sababta ka dambeysay in dadkan luqadooda laga dhigo mid ka mid ah luqadaha rasmiga ee dalka. Arrinka la yaabka leh waxay tahay idaha ku nool dalka New Zealand waxay 5 jibaar ka badan yihiin tirada shacabka ku nool dalkan, oo idaha dalkan ku nool waxay gaarayaan in ka badan 27 milyan oo ido. Ilaa qofna waxa ku soo hagaagi karto 5 ido. Muuqaalkeena maanta aan uga hadlaynay dalka New Zealand intaas ayuu noogu egyahay. Fadlan haddii aad ilowday inaad like garayso muuqaalka noo like garay. Mahadsanid.